اسم قليل داوش ونكسن صاحب يلا ملك استواد جوكتان هلكن وجنال كدبقل كورركا واشنطة بشلا بيتوبناد سنتك الله بكون لباطنيشان قodobada ugu waaweyn wararka aanu xilligan idin haynana waxa kamid ah gudoomiyaashii hore ee gobolka Banaadir Madaale iyo Amiir oo safka mucaaradka ka soo jeestay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo si cad u sheegay inay soo dhamaatay in qori waxa lagu maquuniyo xildhibaanada Puntland oo su'aalo adag ka keenay mushaarka shaqaalaha oo sanadkan la bixiyay 3 bilood oo kaliya bangiga horumarinta Afrika oo ansixiyay deyn cafin dheeri ah oo loo sameeyo Soomaaliya iyo qaybta dambe ee warkeena aan ku eegi doono warbixin ku saabsan qodobo cusub oo lagu soo kordhiyay xeerka isticmaalaan maxkamadaha Soomaaliya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka adiyaad ku cusubtay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalkan like sar share garee oo la wadaag saaxiibada raacatan ku soo dhawaataan faafahinta qodobadii aan idin soo sheegay Madaale iyo Amiir ayaa safka mucaaradka ka soo jeestay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hogaamiyaha mucaaradka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hoygiisa magaalada Muqdisho waxa uu ku qaabilay labadii gudoomiye ee gobolka Banaadir ugu dambeeyay isla markaana xilka wareejiya kiis madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo Maxamed Axmed Amiir ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka muranka ka taagan doorashada golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo jihada uu dalka aadayo markii uu dhamaado muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay in Madaale iyo Amiir ay ka arrinsadeen sidii kaga wada shaqeyn lahaayeen in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay iyo in hoggaanka si nabad loogu kala wareego kulankan ay Madaale iyo Amiir la yeesheen hogaamiyaha mucaaradka ayaa ka tarjumaya sidii uu si kala fogaadeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo bilo ka hor ay aad isugu dhawaayeen Madaale ayaa dhawaan dhaleeceeyay ururka cadaaladda iyo wadajirka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo kadib markii Xasan Xuseen Maxamed Muungaab oo hadda ku magacaaban gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu bishii November ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan kursiga duqa Muqdisho ee doorashada golaha deegaanka ee caasimadda Madaale ayaa ku andacooday in hore loogu heshiiyay inuu isaga noqon doono musharaxa ururka cadaaladda iyo wadajirka kaga qaybgalaya doorashadan taasoo uu muujiyay in hadda looga baxay siyaasiyiinta mucaaradka ee madasha samati bixinta iyo madaxweynayaasha Puntland oo Saciidan iyo Axmed Madoobe oo Jubbaland ayaa lagu wadaa in shir xasaasi ah ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo shirkani ayaa u furan cid kasta oo mucaaradsan qaabka ay dawladda federaalka u maamulayso doorashada dalka oo khilaaf weyn uu ka taagan yahay dacwada kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si qoto dheer kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo horumarka ay ku tallaabsatay dawladdiisa Xasan Sheekh ayaa ugu horreyn sheegay in dalka waxa la haray ee dib u dhigay ay tahay siyaasad xumo iyo in siyaasiyiinta qaar ay weli aaminsan yihiin in qoray wax lagu raadiyo waxa uu sidoo kale xusay madaxweynaha in Muqdisho haatan laga qabtay doorasho tijaabo ahayd isla markaana doorashadaas qabiilo isxijin jiray degmooyin qaar ay ka soo bixi waayeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in looga baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay ka gudbaan qabiilka oo la jaan qaadaan dunida horumartay dhanka kale xildhibaanada Puntland ayaa su'aal adag ka keenay mushaarka shaqaalaha oo sanadkan la bixiyay 3 bil oo kaliya qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Puntland ayaa dood kulul ka dhaliyay sababta ay u dhacday in shaqaalaha rayidka ee baarlamaanka Puntland ay sanadkan oo dhan helaan mushaar 3 bilood oo kaliya xildhibaanada oo shalay ansixiyay miisaaniyadda Puntland ee 2026 oo gaaraysa in ka badan 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka ayaa ceeb ku tilmaamay in baarlamaanka sanad kasta uu meelmariyo miisaaniyadda aan si dhab ah loo fulin waxay dalbadeen in si cad loo faahfaahiyo halka ay ku baxday xuquuqda mushaar ee shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qaybaha kala duwan inkasta oo xildhibaanadu ay tixgeliyeen culeysyada ka dhashay dagaalka sanadkan lagula jiray Daacish haddana waxay sheegeen inay ahayd in wasaaradda maaliyaddu ay keento
xisaab xeer buuxa oo ku saabsan qarashaadkii ku baxay howlgalka caalmiskaad maadaama puntland ay sheegtay in qarashaadkii howlgalkaas uu galay miisaaniyaddii guud. guddiga maaliyadda ee baarlamaanka puntland ayaa sheegay in maamulka uu ballanqaaday in sanadka soo socda ay isbedel weyn ku sameyn doonaan bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada, iyagoo sheegay in dakhliga maamulka uu kordhay sababa la xiriira canshuuro cusub oo lasoo rogay. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo 2 sano laga joogo markii dib loo doortay ayaa si weyn loogu dhaliilay inuusan ku guulaysan bixinta joogtada ee mushaaraadka shaqaalaha rayidka iyo ciidamada. dad badan ayaa weli ka walaacsan iyadoo madaxweyne siciid deni uu hanqaltaagayo doorashada Soomaaliya ee 2026 aysan wax isbedela ku imaan doonin xaaladda dhaqaale ee puntland. dhanka kale, mashaariicdii ay puntland ka heli jirtay hay-adaha caalamiga iyo UN-ka ayaa hoos u dhacay ilaa 60% kadib markii ay yaraadeen deeqihii caalamka uu ku bixin jiray Soomaaliya. geesta kalena, bangiga horumarinta Afrika ayaa ansixiyey deen dhimis dheeri ah oo loo sameynayo Soomaaliya, taasoo jidka u xaaraysa in gebi ahaanba laga cafiyo dhammaan deymaha sanduuqa horumarinta Afrika inta u dhaxaysa 2024 ilaa 2039. tallaabadan ayaa timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay si guul leh u dhamaystirtay geedi socodka barnaamijka deen cafinta ee lagu maamulo wadamada saboolka ee loo yaqaano HIBC. bangiga horumarinta Afrika ayaa sheegay in tallaabadan ay hoos u dhigi doonto deymaha dibadda ee Soomaaliya oo gaaraya 17.68 milyan, taasoo fursad u abuuraysa in loo fasaxo dhaqaale muhiim u ah mudnaanta horumarinta. ansixintan waxay ku timid iyadoo la sheegay in Soomaaliya ay horumar xoogan ka samaysay dib u habeynta dhaqaalaha, maareynta maaliyadda guud, kordhinta dakhliga gudaha iyo wanaajinta maamul wanaaga. HIBC oo la bilaabay 1996 ay bangiga adduunka hirgelisay, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu yareeyo deymaha aan la maareyn karin ee wadamada ka qaybgalaya, kuwaasoo buuxiya shuruudo adag islamarkaana ka shaqeeya siyaasadaha yareynta saboolnimada si ay diiradda u saaraan kobaca dhaqaalaha iyo dhimista saboolnimada. Soomaaliya waxay gaartay marxaladda dhamaystirka HIBC bishii Diseembar 2023, taasoo u suurtagelisay in IMF iyo IDA ay bixiyaan cafiska buuxa ee deymaha, taasoo hoos u dhigaysa deynta dibadda ee Soomaaliya oo ahayd 5.2 bilyan sanadkii 2018. weli saaxiibayaal, waxaad nagala socotaan channelka dabagalka wararka. markana qodobo cusub ayaa lagu soo kordhiyey xeerka ay isticmaalaan maxkamadaha Soomaaliya. golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo shalay yeeshay kulankoodii toddobaadlaha ahaa ayaa ansixiyey shuruuc iyo heshiisyo muhiim u ah dalka. shirka golaha uu gudoomiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre ayaa sharciyada lagu meelmariyey. waxaa ka mid ah sharciga ciqaabta Soomaaliyeed kadib markii uu ka soo gudbay la tashiyo ballaaran oo lala yeeshay culimada, bulshada rayidka iyo sharci yaqaano, lana waafajiyey diinta islaamka, dastuurka dalka iyo xeerarka caalamiga ee dhanka xuquuqda aadanaha siday sheegtay dowladda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa sheegay in xeerarku ay mar walba isbedelaan, dib u eegisna lagu sameeyo. tan Soomaaliya u goonida ahna ay tahay in xeerkan la sameeyey sanadkii 1962. 60 sano ka badan waad dareemi kartaa isbedelka ku dhacay dunida, ayuu yiri Xasan Macalin, oo intaas ku daray in xeerarka sida xeerka ciqaabta uu yahay kan ugu muhiimsan ee aan dib loo fiirin waqtigaasi. waxyaabo badan ayaa sabab u ahaa sida isbedelada siyaasiga ee dalkeena ka dhacayay iyo burburka ku dhacay dowladnimadeennii. sidaa darteed ayaa waxaa la gaaray buu yiri waqtigii dib u eegis lagu sameyn lahaa waqtiga iyo dembiyada soo kordhay iyo kuwii hore wixii iska bedelay si loola jaan qaado. haddaba maxaa ku cusub xeerkani? Xasan Macalin oo su'aashan ka jawaabay ayaa sheegay in ciqaabta dembiyadu ay isbedeleen, isagoo sheegay in hadda ay dembiyo cusub dhacaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin buu yiri kuwa lagu galo dhanka internetka ama online-ka, dembiyadaas oo aan waagii hore jirin. wasiirku waxa uu sheegay in xitaa ganaaxii dembiyada qaarkood uu isbedelay. haddii waagii hore shilin Soomaali ah waxa lagu ganaaxi jiray in hadda uu isbedelay, maantana shilinka uu dhumiyey qiimihiisii. sidaa darteed buu sheegay in xeerka ciqaabta uu la jaan qaadayo waqtiga iyo bulshada.
wasiir xasan macalin oo ka hadlayay qodobada lagu saleeyay xeerkan cusub waxa uu sheegay in 1962 ay dowladnimada Soomaaliya cusbayd aqoon badanna aanay jirin dadka sharci yaqaanada ahna ay yaraayeen ka qaybgalkuna waa uu yaraa halka 60 sano kadib ay dadweynaha Soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan iyadoo dastuurka Soomaaliyeed uu isbedelay oo shariicada islaamku ay qayb weyn ka tahay uu sheegay xasan macalin waqti xaadirkan garsoorku marka uu xukun ridayo waxa uu wada aqriyaa qodobka xeerka ciqaabta iyo daliilka aayadaha quraanka laakiin xeerkan cusub ee ciqaabta marka garsooraha uu aqrinayo waxa uu aqrinayaa si ka duwan maadaama xeerarkii lagu dhex sameeyay oo lagu dhex dejiyay shariicada sida uu sheegay wasiir xasan macalin haddaba xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee hadda jira goorma ayaa la sameeyay sidees loo sameeyay maxamed ciise oo ah qareen qabiirna ku ah shuruucda iyo xeerarka Soomaalida ayaa la weydiiyay su'aashan waxaan uu kaga jawaabay in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed la sameeyay sanadkii 1962 sanad kadib markii la qaatay madax banaanida iyadoo markii hore lagu dhaqmi jiray xeerkii Talyaaniga kaasoo la sameeyay waqtigii gumaysiga waa 1927 isagoo intaas ku daray in xeerkaas hore oo wax yar laga bedelay lagu dhaqmayay ase yeeshee sanadkii 1969 ayaa baarlamaanku waxa uu siiyay awood dowladda ay ku soo saarto guddi farsamo yaqaana oo xeerka ciqaabta Soomaalidu ay leedahay soo sameeya guddi Soomaali iyo Talyaani isugu jira ayaa loo saaray ay ku jiraan saraakiil booliska kuwaas oo soo sameeyay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wax badan lagama bedelin dhanka ciqaabta kii Talyaaniga waxaana ansixiyay baarlamaankii Soomaaliya ee waqtiga waxaana dalka xukumayay xilligaasi Cabdirashiid Cali Sharmaake Turunji waxa uu sheegay in markii uu dhacay midowgii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay soo baxday dhibaatooyin in sharciyada ay kala duwanaadeen waxaana loo saaray guddi si xeerarkii Ingiriiska ee Hargeysa looga dhaqmayay iyo kii Talyaaniga ee Xamar looga dhaqmayay la isugu keeno waxaana la go'aamiyay in nidaamka iyo habka dacwadaha maxkamadaha loo qaado habka Ingiriiska halka dhanka ciqaabta la qaatay xeerka Talyaaniga haddaba kacaanka muxuu ka bedelay xeerka ciqaabta ee dowladda rayidka markii militarigu ay dalka qabsadeen meelaha qaar ay wax ka bedeleen xeerka ciqaabta iyadoo markii la sameeyay maxkamadda badbaadada loo baahday in dacwooyinka qaadistooda maxkamadaha caadiga ah laga soo bedelo oo maxkamadda badbaadada la keeno ciqaabihii ay wax ka bedeleen in maxkamadda awood u leh ay dacwadaha qaarkood qaadaan ayuu yiri Turunji waxa uu sheegay in loo baahan yahay wadahadal iyo in la iswaafajiyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kan dowlad goboleedyada taasoo u baahan buu yiri waqti badan iyadoo waqti badanna la soo maray oo arrimahan wax looga qaban karay balse aan la qaban xeerkan ka gudbay golaha wasiirada kadib markii ansixiyeen waxa uu gudbayaa labada aqal ee baarlamaanka si waafaqsan habraaca xeer dejinta kadibna madaxweynaha ayaa ku soo saaraya sharci dhaqangala markaas kadibna faafinta rasmiga ayuu galayaa guud ahaan saaxiibayaal waa naginta warka channelka dabagalka wararka haddii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalkana like sar share garee oo la wadaag saaxiibada aad ku mahadsantihiin daawashada warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabaadiino nolol kulante iyo amaan Allah